faraxsanahay in caawa aan fursad u helay aan xafladaaneed sharafta leh idinkala soo qayb galo hadda dhawaan soo degay 2 saac ka hor waxaan filayaa hadda in aan la joogo dad ehelkay ah dad walaalahey ah dad aanan kaliya aanan mantalin oo aan aad ugu faraxsanahay in caawa waqti aan la qaato waxaan rabaa Puntland iyo reer Puntland in aan dhaho sanad guuro wacan anniversary oo 21 waaye aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waxaan kale oo rabaa inaan idin dhaho ciid mubaarak bari subax insha Allah waxaan rajeynayaa in aan si fiican u wada ciidno dadkii oo soonaay maantana Ilaahay soonkiina ha idin aqbalo marar badan waxaa la ilaawaa in la xuso dadkii halgan weyn u soo galay Puntland in la aasaaso marka waxaan rabaa in aan u sacbino oo aan xusno dadkii Puntland soo aasaasay waxaan kale oo rabaa inaan xuso dadkii soo barbaariyay oo 21 sano soo koriyay oo meesha maanta ay joogto Puntland soo gaarsiiyay iyagana u sacbiya Puntland maalintay dhalatay ilaa intay koraysay ilaa inta ay jirto cadow badan ay lahayd cadowga ay leedahay kumayna yeelan wax ay haleysay waxay cadowgaasi ku yeelatay horumarka ay gaartay iyo meesha maanta ay ka joogto Soomaaliya marka reer Puntland cadownimadaasi uma arkaan xumaanay waxay u arkaan wax lagu faano anigana saasoo kale taan u arkaa dad waxay dhahaan ilaahay cadowgaaga waa bateen haddaad guuleysanaysid cadowgaaga way badanayaan horumarkaaga badan cadow uu keenayaa laakiin waa inaan xasuusanaa qofka hadduu u baahan yahay qof kale inuu qoorta uga istaago inuu asiga isku ogaado inuu dheer yahay in qofka oo dhulka jooga uu wax ka haleysnayn laakiin qofkaasi intii oo u maleeya taas inay faa'iido ugu jirto inuu asiga yahay qofka wax ka haleysan yahay marka dadka walaalahey oo aan caaw